wararka naga soo gaaraya gobolka galgaduud ayaa sheeg ilaa xalay ilaa saaka ay dhaq-dhaqaaqyo culus oo iska soo horjeeda ay ka bilowdeen deegaano hoos taga magaalada Guriceel oo dhawaan ay qabsadeen al-sunna wal jameeca. galmudug ayaa xoojinaysa abaabulka dagaal ee ka socda gobolka galgaduud isla markaana ay lagu wajahayo al-sunna wal jameeca si dib looga xoreeyo deegaanadaas ay la wareegeen. wararka ayaa sheegaya in saaka ciidamada ugu badnaa ee wata gaadiidka dagaalka ay ka bixeen magaalada dhuusamareeb iyagoona ay gaaray deegaan ceeldheer oo halkaas oo ay ka samaysteen fariisimo ciidan iyagoona ay ku biiray ciidamo horey ugu sugnaa halkaasi. ciidamadan ayaa qayb ka ah gulufka dagaal ee galmudug ay ku wajahayso al-sunna wal jameeca oo dib ula wareegtay deegaanada maamulkaasi. dhinaca kale ciidamada al-sunna wal jameeca ayaa dhankooda dhaq-dhaqaaqyo ka wada magaalada Guriceel waxaana ay heegan geliyeen askarta ku sugan gudaha magaaladaasi. dadka deegaanka ayaa dhankooda lagu soo waramayaa inay bilaabeen barakac xoogan waxaana ay kusoo wajahay cabsi ka dhalatay dhaq-dhaqaaqyada ciidan ee iska soo horjeeda ee halkaasi lagu soo daadguraynayo. weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo ku aadan dhaq-dhaqaaqyada ciidan ee haatan u dhaxeeyana ciidamada galmudug iyo kuwa al-sunna wal jameeca. xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana laga cabsi qabaa in markasta halkaasi uu dagaal ka qaraxo u dhaxeeyo ciidamada galmudug iyo kuwa al-sunna wal jameeca iyagoona horay badiba dadka halkaasi degana uga barakaceen.